run ahaantii xukuumad ahaan iyo dowladdaba farxad weyn bay noo tahay caawa inaynu ka soo wada qayb galno indhaheennana ku aragno waxqabadka muuqda ee muddadii 12 bilood ahayd uu guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qabteen magaalada Muqdisho oo aynu indhaheenna ku wada arkaynay isha macallin ah injineer Yariisow saaxiibka xubin golaha wasiirada ka tirsan 12 bilood ka hor ayuu ahaa waa injineer waa siyaasi waa suxufi waa u adeega bulsho waana ciyaalka xaafadda intaas oo sifo oo gaar ah iyo kartida iyo aqoonta iyo hufnaanta ayaa madaxweyne Farmaajo ku xushay uguna aaminay isaga iyo maamulka gobolkaba inay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir ka shaqeeyaan caasimadda Muqdisho oo ah hooyadii ummadda Soomaaliyeed wajigii Soomaaliya hooyigii midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo ah magaaladii ay ku soo hiranayeen dhammaan shacweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan astaanta oo ahayd wadajirka iyo unugii iyo yagleelkii dal xor ah oo Soomaaliya in uu saldhigto 1960kii noqotana caasimadda ugu bilicda san Afrika dunidana magac weyn ku leh waxaan dhawaan ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika wasiirka arrimaha dibadda Benin ayaa ila sheekaystay wuxuu yiri 72kii markii dugsiga sare aanu ka qalin jabinay baa waxbarasho naloo keenay inaanu ka baranno Soomaaliya Muqdishoana la keenay ilaa afgooye meelo kala duwan oo badan baanu marnay caasimaddaanu aad u marmarnay nala dejiyey waxaana soo dhaweeyay dowladdii Soomaaliya waqtiga wuxuu aad u amaanay oo uu weli sii xasuustaa bilicdii ay lahayd Muqdisho iyo sidii ay uga sheeganayd caasimadihii Afrika ee waaga magaalo lagu soo hirto loo soo dalxiiso haddii imaka daawataan shalan daawanayay 73kii dokumenti nin Talyaani xiriirinayo oo magaalada Xamar quruxdii iyo bilicday lahayd dhirtii iyo udugii iyo maxaan ku yiraahdaa muuqaalkii fiicnaa ee waaga aad si arki karaysid oo uu soo bandhigay maxaynu taa ku soo celin karnaa in waxqabadka muuqda ee jirta gobolka Hormuudka ayaynu ka wada shaqeyno far kaliya forma dhaqdo maamulka gobolka oo kaliya meel ma gaarsiin karo waxqabadka ay u baahannahay caasimad ahaan inay magaaladu soo ceshato haddii qoys kasta uu aqalkiisa dhir ku beero inta u bannaan nadiifiyo oo hagaajiyo bilicda iyo qurxinta uu ka shaqeeyo magaaladu waxay noqon doontaa magaalo qurux badan oo bilicdii ay lahayd iyo wanaagii ay lahayd iyo doorkii caasimadnimo ee adduunka ku lahayd soo celisa taas aynu kala shaqeyno gobolka Banaadir waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray arkaynayna amniga iyo xasilinta caasimadda darisaynta nabadgelyadii inay soo noqoto barakacayaasha iyo adeegga ay u baahan yihiin inuu qayb weyn ka gaarsiiyo oo uu ka geysto waxa uu qayb firfircoon ka yahay tubta bulshada arrimaha bulshada oo dhinaca bilicda biyaha waxbarashada caafimaadka u adeega dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo aynu imaka arkaynay in iyagu ka marakaceen ay wax badan la qabteen iyo siyaasadda dawladda ee barakacayaasha siyaasadda dawladda ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba sharcigoodiina uu yahay kii labaad oo madaxweynuhu saxeexo taasi waxay tusaysaa in ay dawladdu u soo jeedo inay dalkana wax ka qabato maamulada wax la qabato caasimadda wax ka qabato dadka baahiyaha gaarka ah qabana wax badan la qabto wax badan baynu labadaas sanadood ee dawladdu jirtay soo qabanay waliba sanadkaana ay indhaheenna ku arkaynaa oo gobolka Banaadir uu soo bandhigay imakana waxaynu maraynaa heerkii labada sanadood ee hadhay caasimadduna wax badan qaban lahayd gobolka Banaadirna qaban lahaa dawladduna wax badan ay kaalin ka geysan lahayd wadajirka shacab iyo bulshana wax lagu wada qaban lahaa waxay nagu soo aadan doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo nidaamka xisbiyada badan oo aan aaminsanahay gobolka Banaadir inuu buddig weyn u noqon doono dhismaha maamulada 17 degmo iyo gobolka Banaadir iyo sal u dhigidda meeqaamka magaalada Xamar ay ku yeelanayso nidaamka federaaliga ah dib habeyntii dastuurkaynu wadnaa shuruucdii doorashooyinkaynu wadnaa nidaamkii xisbiyada ayaa taabo galay siina adkaanaya maxay maqaamka Muqdisho ay ku yeelanaysaa uu noqonayaa waxyaabaha ay tahay dawladda iyo shicibba iyo caasimadda inaynu wada xaqiijino kana wada shaqeyno wadooyinkii wax badan baa laga qabtay
waxay nagu soo fool loo dhowaan la hirgelin doonaa waddada isku xidha magaalada xamar iyo jowhar, magaalada xamar iyo afgooye oo ah laba mashruuc oo waaweyn oo ballaadhan. waxaa kaloo aynu si isxilqaan ah hirgelinay barnaamijka isxilqaan oo meelihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladdu lahayd ee caanka ahaa sida tiyaatarka, madxafka, stadium muqdisho, taallooyinkii dib loogu dhisaayo oo aynu inagu dib u yegleynayno, gacmaheennana kaga shaqaynayno, gobolka banaadirna hormuud weyn ka yahay sidii dib loogu dhisi lahaa. ishaa macallin ah, ishii bugtay ku bikaacso ayaa la odhan jiray. waxaynu maanta indheheenna ku wada arkaynay kana marakacaynay, bulshada rayidkii nooga markhaati kacday, shacwinaha soomaaliyeed indhahooda ku arkeen, dowladda iyo shicibbana arkaynay 12 bilood waxqabadyo la taaban karo oo uu hirgeliyey gobolka banaadir. markaa mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa, malaha annaga waa aragnay, shacwinaha soomaaliyeed waa arkay, bulshada rayidkii waa aragtay, culimaadudiinka soomaaliyeed, ciidamada qaybahooda kala duwan waa arkeen. waa markii aad u soo bandhigi lahayd niman saaxiibadeenna oo wax badan aan ka warhaynin, siyaasiyiinta xanaaqsan, aad u soo jeedin lahayd inay iyaguna arkaan, indhahooda ku arkaan, indhahooda ku fahmaan, oo la soo taagan mar walba waxba lama qaban, lama dhaqaaqin, qabyo waa halkeedii. waan idin hambalyaynayaa, waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gobolka banaadir hambalyo.